Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Subax wanaagsan, maalin wanaagsan, jimco wanaagsan insha Allah. Kusoo dhawaada channelkeena FX Somali Review. Maanta oo jimco ah insha Allah tacaala ay tahay maalinta u dambeysa suuqa weekliga inaan muraajaca aan ku sameyno insha Allah tacaala. Lacagaha kuwii shalay aan galnay iyo kuwii aan kusii jirnayba iyo kuwa maanta aan rajeynayno inaan galno hadduu Ilaahay aan ka bilaabno Euro New Zealand insha Allah. Euro New Zealand waad aragtaa qiimihii inuu xoogaaya kasoo yaro hoos baxayo laakiin kor u yaro noqonayo isku dayayo inuu soo baxo moving average uu ku kormari la'yahay. So waa lagu cadaadinayaa soo ma jeedin. So wuxuu sugayaa meel uu u socdo buu sugayaa. Hadduu Ilaahay idmo insha Allah saddex saacadood kadib waxaa soo bixi doono CPI oo euro. Waxaan rajeynaynaa in qiimaha haddii positive soo baxo eurooda inay kacdo. Haddii ay soo bixi weysana waxaad arki kartaa qiimaha ilaa eridaas in uu dhaafi la'yahay. Si clear u fiiri 1 2 3 4 inuu dhaafi la'yahay baad u maleysaa. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah haddii negative ay soo baxdo up to here inuu Euro New Zealand tago. Already xalay aan soo post garaynay in Telegramka Somali Online Trader waa soo dhignay in Euro New Zealand 15 pips eridaas aniga iskaga baxayba 50 aan ka galay 65 eridaas aan uga baxay waan iska xiray maadaama aan arkay dhowr jeer oo laga soo celiyay 1.7301 ilaa 2. So marka qiimaha waa la cadaadinayaa. Marka waxaa suurtagal ah inuu up to here u jabsado oo soo taabto 1.70. So marka waxaan sugaynaa newska euro baan sugaynaa insha Allah tacaala. Euro New Zealand waa sidaas trendka uu kasoo hoos baxaya. Marka waxaa sugtaa newska uu soo baxo. Waxaan rajeynaynaa eurooda ama xagga Europeanka in lagu furo qiimo heer sare ah inuu qiimaha kor u yar kaco insha Allah. Baan rajeynaynaa kadib newska haddii uu positive noqdona oo sii socon doona hadduu negative noqdona wuu soo degi doonaa. Aan fiirino midka kale Euro Australianka isagana aan fiirino insha Allah. Euro Australian weli muusan soo gaarin take profitkeena waan sugaynaa weli waa lagu celcelinayaa meesha. So waxaa sugtaaba chanceska isagana sidoo kale moving averageka haddii aad fiiriso 50 casho iyo 100 casho haddaad fiiriso qiimihii wuu ka sare la'yahay waa lagu cadaadinayaa. Resistance uu ku yahay sometimes qoryo ka baxsanaya. So marka waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala qiimaha up to xitaa inuu ka hoos maro waan rajeynaynaa uu tago up to here inuu tago waan rajeynaynaa. Haddii uu kasoo dhex baxo qiimaha erida qofkii soo galay oo kale maanta galay doono uu kasoo dhex baxo ha isku diyaariyo qiimaha profitkiisa automatic qaato waa gooni laakiin haddii kale up to here inuu kor usoo yaro kaco after that Mondayda ilaa Tuesdayda qiimaha inuu this area oo dhamaystirto baan rajeynayaa. Laakiin insha Allah anyway qof walba waa isaga xaggiisa insha Allah tacaala. Sorry marka insha Allah tacaala Euro Australian isagana waa sidaas qiimaha Euro Australianka waxaa sugtaa newska sug qofkii ku jirayna insha Allah tacaala already profit uu ku jiraa ilaa eridan 20 30 qadba si 40 qadba si waaye. Marka muxuu ahaay haddii uu eurooda positive ay noqoto aad aragto already waxaa waaye waa haddii qoriga si toos usoo boodo waa gooni laakiin intuu soo gurgurinayo profitkaaga yara ka xir dhinaca kale oo gal insha Allah tacaala. Sugna trendka ilaa uu ka jibiyo sug hadduu Ilaahay. So marka waxaan rajeynaa in hoos loo cadaadiyo hoos oo maanta eurooda CPI-da hoos aado insha Allah. Aan fiirino midka kale oo isagana oo aan ku jirno Euro Canadianka inuu noo furay in kale. Euro Canadianka waa kana shalay this area oo marayay mar aan sharaxaynay in this area meelahan. Marka waxaad aragtaa qiimihii inuu sii socdo ilaa uu gaarayo 1.4979 ilaa 80. So waa tii aan dhahnay in this area wait 1.50
ilaa 1.5016 inuu qiimihii gaaro. After that qiimihii lasoo rido waa rajeynaynaa. waa macnaha signalka ama chartka sometimes way iskeenaan iyo news sidoo kale waa isku matching bay isku noqdaan. So waxaad arkaysaa newsku soo bixin qiimihii waxaad arkaysaa resistance ama downtrend ama uptrendigi oo kale sii aaday. Sometimes waxaad arkaysaa sida pound oo kale dhacday shalay news positive baa soo baxay qiimihii waxaad arkaysaa qofka hadduu hore ka trade uu ka sameeyo waxaa waaye waa sometimes waxaa la sameeyaa dadka isla markii soo galay markaas oo kale suuqa stop loss sida laga soo aruuriya kadib qiimihii waxaad arkaysaa si nadiif ah 100 200 150 oo tartiib kor u soo socdo. So marka anyway mar walba qiimaha waa la sugaa haddaadan mar hore aadan ku jirin meel fiican aadan ka soo gelin isla newska hore lagama galo waa la sugaa. waxaa waa ilaa 5 minutes 10 minutes baa la siiyaa qiimaha meel u socdo marka jihada aad ogaato iyo sida suuqa u socdo. So marka waxaan rajeynaynaa markii hadda euroda la furo in xawaa kor yara aado insha Allah. weliban hadda aad meeshan aad aragto resistance oo ka dhigtay moving average-ka balse wait until aad newska aad aragto 3 saac baa ka dhiman lana sessionka xawaa yar kadib la furi doonaa ilaa 1 hour and a half 2 hours kadib si fiican buu furi doonaa suuqa kadib dhaqaaq fiican buu yeelan doonaa. isha ku haya euro Canadian isagana insha Allah. euro USD isagana aan tago oo isagana aan sugayno waatana shalay waxaad aragtaa qiimihii ilaa weli inuu wasan xitaa meel fiican uusan aadin laakiin waxaan rajeynaynaa up to here inuu tago maanta euro hadda inta la furaayo u dhamaystirto. mar buu u dhawaaday oo tagay area qorigan haddii aad fiirisaan 1.407 buu tagay laakiin areadan baa laga sugaya 29 ilaa 30. so marka wuxuu kaloo suday 50. so waxaa ku jira 80 pips hadduu qorigaas jirka xitaa meeshuu gaari lahaa qofkii sell limid oo kala dhigtay inuu si fiican uga faa'iidi lahaa. balse waan rajeynaynaa haddii euroga intii kor loo furo negative uu soo baxo insha Allah up to here kotasho 90 pips ilaa 100 pips waxay idinkaga rajeynaya isagana guul baa idinkaga rajeynaya isagana sell limid baan ku gaadaya. aan fiirino New Zealand USD weli waa sidii wax dhaqaaq ma ahan ilaa hadda 8 pips baan ka haynaa oo soo laabtay. so waxaan rajeynaynaa isaga maanta hadduusan dhaqaaqin Monday ilaa Tuesday inuu dhaqaaqo haddii kalena muxuu ahaay aan eegidan oo kale aan ku sugno. so marka New Zealand USD isagana xaaladiisa waa sidaas insha Allah. aan fiirino USD Canadian waa kana up to here weli waxaa waaye markii uu habeen hore oo qiimihii profitkiina siiyey wax yar buu soo dhigay waa la soo celiyey. so maxaad aragtaa dadka scalping ama shortiga ah saacada yarku buu geysanaya qofka saacad yarku markuu geysto si clear buu arkaya fiiri waa uu soo dhigay moving average buu resistance ka dhigtay masha Allah. so wuxuu arki karaa qofka psychology inuu qofka isticmaalo inuu moving average indicators inuu isticmaalo inuu psychology isticmaalo inuu isticmaalo newski inuu isticmaalo chartski waa inuu isticmaalo chartki waa inuu isticmaalaa. so intaas markuu isku darsado iyo xogta inuu soo aroorsado waxaasoo dhan markuu isku gegeeyo ilaa 5 indicator ilaa 6 indicator ama 4 markii ugu yar tahay oo qofka uu ku cadeysto psychology-giisa uu fikiro iyo candlestick iyo wax walba markuu u fahmo in qofka markaas confirm uu dhaho masha Allah. so marka inta kale waxaan dhihi karnaa qiimihii inta ku waa resistance area. so waxaan dhihi karnaa okay qiimihii resistance area waa soo macnaha mar walba oo moving average-ka iskala hoos maraan oo qiimihii kor u aado waxaa la sameeyaa waa la soo celiyaa qiimaha ma ka dheeraado moving average-ka ilaa xadka ma dheeraado. so marka inta soo darso kow maxaad aragtay moving average-ka oo laga dhex baxay oo qiimihii kor u aaday resistance u tagay. so waxaad aragtay candlestick guduudan oo weyn waxaad aragtay mid kale. so waxaad sugaysaa candleka kale soo kici doono
oo meelahan oo kale usoo dhawaado dan soo gala soomaadan garan after that waa kan fiiri haddaad intaad sugaysid ee kugu qaadato qiimi ilaa inta lagu soo celiyo fiiri ilaa intoo kale lagu soo celiyo candlekii hore agtiisa after that waxaa la sameeyey waa lasoo riday so marka intoo kale hadaaba kasoo raacay kasoo qaadba 50 up to here waa 14 waa 36 pips waa so marka waxaad arkaysaa moving average resistance oo ka kacay marka uu taabtay waxaad dhowr jeer ku ceshan kartaa inuu qiimihii uu haddana u yahay meelahan oo kale kama geli kartid qiimo weliya dhex socod lagama garo waxaa la sameeyaa meesha ugu sareyso iyo meesha ugu hooseysa baa lagu sugaa iyo sometimes qiimihi aad aragto signals fiican ku siiyo inuu ka dhex baxay uu socon doono insha allahu tacaala USD Canadian isagana waa sidaas insha allah waan ku jirnaa selkiisa kolley profit saas u weyn kama yan wax yar baan keenay laakiin waan sugeynaa insha allahu tacaala maanta Canadian baa jira isagana newskiisa so that marka euro Canadian idana waa inaad iska ilaalisaan oo aad isha ku haysaan labada news ba euro-gana way dhaqaajin doontaa Canadian-kana way dhaqaajin doontaa insha allahu tacaala idana waa sidaas aan fiirino pound shalay mid kamid ah aan galay pound switch masha allah waa kana qiimaha this area baan ka galay aniga 1.26 so marka waxaad arki kartaa qiimahan inuu yahay muxuu ahay markii la furay inuu qiimahan hoos u yara dhacay laakiin wax yar kadib wuxuu sameeyey masha allah wuxuu sameeyey dhuujiga sirka ah wuxuu isku dayay inuu qiimihii oo newskii oo ka dhigo wax negative camal ah balse muusan u suurtagelin oo qiimihii newska uu ahay racial saleska oo muxuu ahay London zaid world cup-kii laga adeegtay so marka kor buu u kacay masha allah 26.80 baan ka galnay waxaan ka haynaa hadda 84 adiga ku dhawaad 60 pips hadda waan keenay alxamdulillah waxaan rajeynaa in this area inuu gaaro pound switchka in xitaa qoriyadan laga soo celiyo waa suurtagal 1.2717 balse our target keena 1.2740 ilaa 20 inaan ka dhigno 30 inaan ka dhigno 104 pips ilaa 100 pips inaan ka dhigno insha allah pound switch isagana waa sidaas inkastoo isaga aanan idinla soo wadaagin laakiin pound positive-kiisa markaan arkay muxuu ahay midka ugu macquulsanayo oo aan raaci karo inuu yahay pound switch so marka lacagaha qaar baa waali ah sometimes pound USD waa u ixtiraamaa iskana laakiin pound yen sometimes haddii suuq uu waalan yahay oo kale oo qofka zaid ku waalayo waa pound yen waay soomaadan garan so waxaad arkaysaa within few minutes kuwa kale markay aysan dhaqaaqeen isaga inuu dhaqaaqayo inaba pips aan caadayn so marka insha allahu tacaala pound yen sometimes waa signalka xitaa ma ixtiraamayo waa waxaad arkaysaa isagoo iska dhex baxay marka insha allahu tacaala intaas baan kusoo gabagabeynayaa maanta waa anagoo euro Canadian sugayno euro USD aan sugayno iyo USD Canadian aan ka sugayno signalkiisa selka insha allahu tacaala waxaan kaloo idinka ilmaamay pound Australian isaga waa kana oo aan ku jirnay masha allah qofkii meelahaas igala soo raacay waa faa'iido fiican buu ka haystaa waa qiimihii shalay meeshuu tagay fiir 1.7460 aan dhaanay ilaa qiimaha newsku kasoo baxayo haddii uu muxuu ahay uu tago aan iska xirno laakiin waxaad arkaysaa in pound Australian uu si fiican uga soo dhex baxay support area awalka resistance uu helo ka dhex baxay laakiin waxaan rajeynaa hadda inuu ilaa areadan oo kale uu ku laabto ilaa this areadan oo kale inuu ku laabto insha allah then uu si fiican usoo dhaco laakiin muxuu ahay qiimaha meelahan ka rabnay inuu tago waqti bay qaadanaysaa qofkii faa'iido fiican ka haystana waa masha allah waa ani up to here waxaan ka hayaa 118 pips baan ka hayaa so marka
stop losska in this area waxaa soo dhigaysaa ilaa 50 pips waa soo dhigaysaa maadaama uu poundka xoogaa kor usoo yar dhaqaaqayo haddii uu qiimaha uu soo jibiyo si aad faa'iido uga qabato insha allahu tacaala haddii uu sii socdana waa maasha allah waa idinla soo socodsiinayaa groupka baan soo dhigi doonaa so marka have a nice day maalin wanaagsan jimco wanaagsan waxaa idin rajeynayaa guul baa idin rajeynayaa waa anigoo ah Sikriye ku magac dheer Xardaawi subscribe like share and comment waad ku mahadsantihiin daawashada videogan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu